haddii aqoonsina adduunka aad ka weydaan Soomaaliyana aad ku biiri weydaan ururkaasna muxuu dawladda ugu talin doonaa aqoonsiga waa mas'alad waqt aqoonsiguna waa anwaac badan buu leeyahay shuruucda adduunka ninka dhigtay baa yaqaanee aqoonsigu waa mid mar naftaada ka dhalata midna waa mid dibadda kaaga timaada tan naftaada ka dhalata haddii aad xaaladkaaga hagaajisato iyadoon dibadda cidi ka aqoonsan baad weligaaba dawlad ahaan kartaa bal tay wanaag yaa weligeed bay jirtay Chinaha weyne imise sanadood baan la aqoonsan min 1949 ilaa maalintii dhaweeyay 70 ha yeeshee dawlad Italian sida tan Soomaaliya dhalanaysa oo dunidii u baahan oo dalka ila dhisalahay aqoonsi nafteedo kaliya xitaa haday nabadgelyadeedii waxa hagaajisto kuma filee kii dibadana way u baahan tahay taa waan hubnaa inuu imanayo marka aan u sabiro waayo gar sharciyana waanu haysanaa xaqna waanu haysanaa ummadana ma jujuubayne afti baanu biri ka qaadaynaa iyagaana doos lamana arag adduunka meel la yiri shacbigaasa qaraarka qaatay oo xaqiisa waa lagu tumanaya sharci adduunka ay ku taala ma jirto marka anaga iimaankayagu aad buu weeyay waxa jirta aqoonsi la'aanta dibadda waxa ka daran baa la yiri aqoonsi la'aanta gudihiina oo dhibaatooyin fara badan baa gudaha jira dawladda ma jirta dawladda waxa dhibaatooyin fara badan baa dhismaheeda kala kulanteen walaarinta ka waran Ibrahim dibta iyo aqoonsi la'aantu waa kala laba Maxamed dibtu weligeedba waa ay jiraysaa weliba dad koob iyo 10 sanadood soo dagaalamaya cadaadisna uu haystay muddo 30 sanadooda koob iyo 20 afkiin dambe haw badnaatay oo hantidoodii baaba'day oo badhkood la laayay oo qaxooti noqday oo min Canada ilaa Australia u kala yaacay in la isweydiiyo dhibi ma jirtaa horta iyadu meesha kuma jirto aqliba maaha waa ta kale xagga aqoonsiga la leeyahay dawladda gudaha ma laga aqoonsan yahay te habab sharciya baanu leenahay SNM shirweyne Congress la yiraahdo iyo fadhi golo dhexe ayay wax ku goosataa dawladana habka sharciga ah ayay ku soo baxday habka sharcigaana ku dhici doontaa inta markaan idhaaho dabcan aqoonsi la'aan ma taal waxa sayaala qof diidan xaqna uu leeyahay inuu diido mucaarid baa jira xaqna uu leeyahay inuu jiro asalkiyaba kuma naan dhaqmin dictatoriyad mucaaridku waa waajib laakiin waxaanu leenahay habka mucaaridka uun hal la barto wadadeeda waayo wili SN marka la wadayahay guduhu ku jira goodho xisbi kale u bixi doona waayadii hore hadan halka kaftan raacsado ayaa had iyo jeer markii aanu ku jiray halganka Maxamed Siyaad Barre aanu la diriireynay aanu duurka ku jiray ayaa marmarkayna la kulaamaan idaacadu khaasatan BBC-da ayaa la yiraahdaa waa is haystaane waa murmaysaane anna waxaan ugu jawaabi jiray muranku waaba kaanu ku caanamaalo waayo meel ragdooday ayuu xaqna yimaada muranku waa maxay dhibaatada jirta waa maxay waa sidii arrimo loo dhisi lahaa dhibta inta leeyeen kaaga waramay sidii looga bixi lahaa arab iyo labadiisa daanba isqaniinee xaja lagu murmo miyaanay ahayn Maxamedo hal la toosane lilla tuurle